bilood ka iriya waxay iga soo noqdeen marka haddeed rag waa balaaye aniga haddeed waa sheegi doonaa sidii qaabkii aan maray laakiin ragga qaraabada ah oo meelo badanna kale meelo gaarana kala joogjoogo ayaa runtii xoogaa inaan masaladaas oo cudurdaar ka bixiyay ay igula hadleen war kelmadaan yahow anna waa u qasday nimankaasna waa ula qasday kumana xumaynayniy waxaan uga jeeday wanaagaan uga jeeday ayakuna waa fahmayaan dadka hadalka fahmo waaye iyo ujeedadiise dhaaf war annaga ama samaynayna ama haddii kale adiga sameey runtiina waa ku mahadinaya waxa weeyaan waa dadku waxay yaqaaniin wax la yidhaahdo hadalkan haddii nooma dhahan la yaqaani nooma dhahanna wax la yidhaaha yaqaani runtii marka aniga waaba ii dhahnaatay laakiin ayagu waxay yidhaahdeen marka tanasulan ayagoo maaragtay kolleyba anigoo ayaga tixgelinaya waxa weeyaan kiiskaasaan marka rabay inaan wax ka ilaahada kale ka dambeeya yacni aan wax kaga noqdo marka hore hadde waxa weeyaan adiga sida badanaaba waxa weeyaan waxaan u joogo oo aan u xiranahay oon usoo shaqaynayay oo marar badanna haddee lagu xiray mararna dil la iiga xukumay haddana aan u xiranahay waa tasxiix waayo tacyiir ma waa tasxiix waayo yacni ummaddan ilaahay subxaana wa tacaala iga dheliyey waxaan jeclahay inaan saxo wixii aan ka kari karo waayo marka dee marar badanna raggaan isla soo shaqaynaynay waxa weeyaan raggii haddee maaragtay adduunyadana waa iska dhib badan tahay waa cadaab waaye marka waxa weeyaan hadda waxbaa siya iska noqnoqdeen marka waa ujeedaan hadda maantay anigan baa kusoo haray oo ama u xiran macnaha marka wixii aan ka kari karo haddii intaanuba waxaan u haystaa inay waa nooc fadiilo ah ilaahay subxaana wa tacaala marka wixii aan ka kari karo inaan ka saxo waa saas haddaan qof maago tasxiixaasaan ujeeda haddii aan qolo maago tasxiixaasaan ujeeda haddaan wadaada maago tasxiixaasaan ujeeda haddaan dawlad maago intabana waad ogtihiinoo qolo aana taaban ma laha qolo aana taaban ma jirto marka hadee dadkuna hadda waa dhici karta qola hadda maaragtay warka aan dhibsanayna ma arkin aniga warkayga waa la dhibsadaa run waayo waa la dhibsadaa oo waa saas waaye oo aniga hadde waxa weeyaan ilaa wax hadda iigu hor maaha oo anoo maaragtay bahalkii muxuu ahaa oo yaraan maaragtay aan waxaan bilaabay waxa weeyaan muwaajahadaas inaan dadka iskaga hor nimaadno waxaa iigu horreysay markii xalana aan galnay 72 markii aan xalana galnay baa ay ugu horreysay muwaajaho oo salaadii naloo diiday akaademigii sidoo kaleeto salaadii waxaba igu dhacday ama shaqada doona ama diinta doonaa igu dhacday dagaal adagaan ka galay ilaahay igu guuleeyey runtii taasna tii xalanana ilaahay waa igu guuleeyey sabaloolshan in la yidhaahdo oo maaragtay marka kasan kale waxa weeyaan haddana shaqadiina sidoo kaleeto oo cali samantara iskaga hornayd maxamed siyaad baraan iskaga hornayd waxaasoo dhan marka yacni dadka marka aniga wixii aan markaas khalad u arko oo maaragtay aan khalad u arko ama diini ha ahaato ama dabci kale ha ahaatee weliba khasan waxyaalaha diiniga ay ama dabcigaba waxa weeyaan dadka ugama gabado ilaahay mahadiis oo ugama haybeysto yacni waxa aan xaq u arko dadka ugama haybeysto runtii oo waxaan waa qalad inaan iraahdo kama yacni waa weligiina saasaan aan ilaahay igu gargaar
mana ku khasaaro oo sida badanaa aniguna hadda waxa weeyaan istustus iyo waxa midna ilaahay gumaam siinina maartay istusuna laba kaba suuragaleen nin dhan oo weyn oo madaxweynaha iyo nin maartay baalkii cali sabantaro yani wasiir waxaan maxay wasiir koobaad ahaa oo maartay wasiir baalkii muxuu ahaa oo ciidanka baalkii muxuu ahaa ku jiray oo wax weeyaan waxyaalahaas oo dhan waa soo marnay marka haday wadaadada tahay waa sidaas oo kale waa lagu yaqaanaa maaragtay kiiskaas inaan dadka saxaan ay tahay maaragtay taas waayo waxaan xiran dawladda inaan saxaan rabaa dadka inaan saxaan rabaa qabaa'ilka inaan saxaan rabaa waxaas oo dhan marka tasxiixi aniga iga yihiin yacni nabiyaan ahamalihi oo haddii aniga waxyi ii imaan maayo marka ina khata waa iga imaan karaa khata waa imaan karaa mid waxaa yidhi marka waxuu qoray maaragtay kelimadiisu waa fallaar qaansa ka baxday sooma noqoto ka wada maya waxa aan ku adkay waa mabaadi'da waaye laakiin masaalixda waa u jilicsana dadkuna waa igu yaqaani haasatan odayaasha iyo waa igu yaqaani masaalixda waa u jilicsanahay laakiin mabaadi'da markay tahay aan maaragtay bahalkii muxuu ahaa aan layga loodin karin adduunkao dhan hadda isu yimaado ilaahayna waxaan ka rajaynaya inaan ugu sugo insha allahu tacaala ilaa aan ama kaga dhinto ama kaga guulaysto allah maaragtay yani ilaa aan kaga dhinto marka waa saas waaye walaalaha marka waxa weeyaan runtii markaan idin sheegana waa dadkao dhan aan u sheegaya nimankan waxa weeyaan aniga shaksigayga marka la eego qabaa'il markii la yidhaahdo ayagaa igu fadli badan sababta waxa weeyaan maaragtay waxa weeyaan ayaga culimadooda aniga maaragtay fadli weyn ugu leh aniguna hadda maaragtay dadka ku kufriye maayo dadka ku kufriye maayo marka kelimadan runtii waxaan is yidhi maanta maxaa u reebi kartaa ilaa waxa waa ujeedaan waxa weeyaan maaragtay odayaa noqday maaragtay camrigii waa iska dhammaaday marka maxaad kelimada aada u reebi kartaa aan is yidhi marka yacni ammaan iyo maaragtay waxaasna aniga waxa weeyaan wax oo ilama ahan maaragtay dad wax looga taga ma ammaan يعني هذي مدشدة وأقولها قفك متوه وأقوله وأنا كو أمانة يا وحي كو أمانة صح واي مركز وحال يصير وح أنفعه وتجعل يصير مركز واحد عكرتين وحكو جف لكن قصة كي وصاصه نينكي مركز ساس أفهمي ولو هذا عيسان أيك هذا وح ورو إيجا إيمانين لكن نينكي ساس أفهمي هدد وما هتسيه هاي نينكي هذا سكر أفهمي وهذا سيد الجرتابة سيد oo kelimadii iyadoo warkiioo fiicana dadka maaragtay meelay inta maaragtay ka wax yar kelimo inta ka qabsadaan ayay dabagedinayaan waa iska aqaana dadkaasna adiga hadda daba warka uguma talagalo waxaan ugu talagalaa dad yaqaana kelimada xaggay u jeedaa oo kelimada warka socda xagguu u jeedaa warkan maxaa looga jeeda ilaa waxaan naqaanaa annaka waxaan naqaanaa waxa la yidhaahdaa caayid iyo caayashaan kala aqaana caayid iyo caayasho maxay kala yihiin waxa weeye qofka inaad caayido tiraahdo waxaasaa tahay oo nin xunaa tahay caynkaas oo kale ama qof xumaa tahay oo qolo xumaa tihiin inaad saas tiraahdid oo markaas aad ceebahoodii sheegtid na waa shay waaye war walaalow ama walaalayaalow ceebahaasaa jire iska saxa naba aniga caayasha ii tahay yacni waa gacalow waaye walaalow waxaan iska sax waxaana ciladaana kugu jirta iska sax waxa weeyaan aniga saasay ii tahay marka caayashaan u aqaanaa hadday xataa caayi ku jirto marka ceebayna waa ku jirtay sax waaye waaba sheegayba waxaa kaleeto jirtay sida runtaa waxaan kaloo ku daray yani cudurdaarkana waa ku daray horena waa uga daray gadaalna waa uga daray oo dhexdana waa uga jirtay marka saasa marka aniga sida badanaaba waxa weeyaan wax istasxiixin aan u jooga dadkana yani sida badanaaba yani inay dhinsanayaan waa ogahay warkayga waa la dhinsadaa dawladdu waa dhinsataa yani mucaaradku waa dhinsanayaan wadaadadu waa dhinsanayaan waa saas waaye iyana hadda waxa laga dhinsanayo waxa weeyaan yani waxaa cirbada maaragtay bahalkii maxay ahayd injectionka waxaa loogu ama bahalka tan oo cudurrada looga hortago waxa weeyaan maaragtay qofkaan maaragtay yani waxaa la baraarujinayaa la yidhaahdaa yani difaaca jirku waa jiraa marka asagiyaa la baraarujinaya
oo waxaa lagu durayaa maaragtay yani noocii oo looga baqaayay oo daciifa aa lagu duraaya markaasuu baraarugaya marka tasxiixu saas oo kale waay yani marka qofku marka cirbada dee lagu dhufanayo waxa weeyaan waa xanuunsanaya saas waay marka warkuna waa saas waay warkaygana waa lagu xanuunsadaa run waay waa lagu xanuunsadaa laakiin haaliban markasta ma dhahayo sida badanaaba waxay u badan tahay inaan dar alle uga jeedo inaan uga jeeday u badan tahay oo yani wanaagna aan uga jeedo wanaagga marka ama qolaan ku wanaajinaya ama qofaan ku wanaajinaya ama ummadda caamkaahan ku wanaajinaya maalan haddaan qof maaragtay qof ataagaan leeyahay waxaas waxa weye qofkaas uma fiicna waxa weeyaan ummaddaan uga digaya qofkaas ma fiicna saas qaladkaasuu sameeyey waxa weeyaan ummaddiyaa looga digaa isna waa loo digaa waxaa laleeyahay maarata waxaan ka noqo ama ka leexo saas waaye haddaan marka kelimadii usoo noqdo kelimadan horta waxa weeya darajaadka usoo mara idin sheegaya awalan horta yani dad sida badan u fahmeen nimankiioo ayagoo shiraaya oo ciloos lagu hayo siyaasiya aada maaragtay aada dhabarka ka garaacda saas oo kalea dadka qaar ugu fikeraaya anigana marka waxaan u fikeraya nimankan waa fursad khatar ah oo maaragtay maanta inay isu yimaadaan oo ka shiraan oo qadaayaad maaragtay caama ka shiraan ama siyaasad ha ahaato ama ijtimaac ha ahaatay ka shiraan alla ilaah maxaa ku biirin kartaa ay ahayd saasaan marka ku fekeray fakerkii marka dee munaasabo waa ta'yiidiyo waxaan idhi maaragtay shirka aada iyo aad ba usoo dhaweeyey laakiin maxaa ku biirin kartaa waxaa ku biirin kartaa marka inaan idhaahdo niman yahow maaragtay waxyaalo badan oo inaad iska saxdaan u baahanaa jira saxda wixiyaan waa qoray waa tartiibiyey qaabkay maaragtay ay ahaayeen yani cunaawiintaa sida barta aan qortaa yani warka intiisa kale waa anaa qaabsada laakiin canaawiinta aan ka hadlayo aan qortaa waa gartay haddana markii aan qoray waxaan sameeyey wabilaahi calay waxa weeyaan waa weysaystay laba ragcaan tukaday ilaahay baan beriyey inuu waafajiyo waxa weeye maarata ila bani aadamku miskiin waaye maarata shaydaana caradii jooga maaragtay waxumuu kugu ridan karaa maaragtay waa khatar waaye ilaahay marka aan haddana beryon ilaah maarata kelimadaa i waafaji iyo wixii khayra oo la socdo markaas waa duubay markaan duubay haddana dibaan u dhegaystay waa ka aniga dee waa ila fiicnaato waxaanba isiri ilaahay subxaana watacaala inuu waafajiya umalaynaya waa ila fiicneed yani meelaha boogahaan hontaa taabtayna haddee waxa weeyaan aniga yani waxa weeya qofka inaad cillad iska sheegtid aadana sheegin daliilna aada sheegin ayaa maaragtay aan cillo u aqaana oo war caamo qofku hadduu iska sii daayo oo weliba ceeba ousan una sheegin maaragtay yani maaragtay uusan daliil u sheegin saasay ahayd markay waxyaala marka waxaa jiray oo maaragtay bahalkii maxay ahayd aan u qasday inaan ayada yani aada u baraarujiyo waa ku jireen runtii oo maaragtay aan maaragtay xoogaa tacbiir oo yani qallafsan ama dii la dhihi karo aan ka cabiray waa jirta waana ugu talagalo waxaan islahaa warkaani waa in uu maaragtay yani waa inuu danqasho keena calashaan dadkiisay isaga aruuriyaan waa saas waaye ficlan waa dhegaystay waa runtii yani qaabkaan aniga u rabay hal shay keliya amaan xusuustaa inay dhaaftay oo waxa weeyaan dee dadka markii oo wax laga sheegaayo ama ceebo la sheegaayo waa in oo la istinaado cid laga istinaado sidii reer bani israa'iil oo kaleeto soo ma jeedi oo ilaahay ka istinooday marka qolooyin maaragta laakiin istinahan markii uguma aana talagelinoo waxaweye ilaa cidda dhanaan la hadlaayay marka waxa weeyaan markaasoo kalena wanaagaan u jeedi marka wax marka aan uga reebo oo waxa weeyaan ma aanan rabinoo waxaanba rabay maaragtay yani kan wanaagsan iyo kan maaragtay yani kan arrintaas ka maran iyo kulli wixii oo dhan waa ismathalaan marka
tamthiilkaasaan uga jeeday inaan maaragtay kiiskaas la saxo ila maadaama aanan ceeb aanan wixii keliya aanan ka dhigin ee aan tasxiix ka dhigay aan waxaan rabay in maaragtay la saxo aan rabay kulli in la saxo oo la isugu tago oo nin maaragtay yani nin weyn iyo nin yar nin magaciis iyo nin uu la isugu tagaan rabay runtii ilaa meeshana shiraan ka jiray in la qaanuuneeyaan rabay saasaan u hadlo cudurdaarka xataa waa ku daray horena waa uga daray galaalna waa uga daray laakiin waxa weeyaan markaan dhegaystay waa ila qurxoonaaday ficlan markii xataa lagu qabsaday dibaan waan u dhegaystay waa ila qurxoonaaday soo jeedin dadkii maaragtay marka waxa weeyaan macnaha dad waa laga yaabaa qofka moogta isagu siduu u fikiraayo inaadan adigu aadan la socon saa u fikiraayo waa dhici kartaa sida aan maaragtay aniga uga jeedo inaad ujeedadaada inaysan maaragtay aysan aadan fiirin waa laga yaabaa laakiin aniga ujeedadaydii aan ka lahaa waxaan islahaa waa kuu gutaan islahaa warkaas waa kuu gutaan islahaa marka hadda waxaan dib uga hadlay waliba ragga waxaan ku idhi markii ay yidhaahdeen ma kelimadaas waan ka hadlaynaa waxaan idhi kelimadan cudurdaarku wuxuu keenayaa kelimadii iga fasaadaysa kelimadii waxa aan ka rabay iga fasaadaysa iga dhaaf marka laakiin haddee raggii maaragtay haddee qaraabana ah xataa culummo iyo wax walba iskugu jira waa yaraha waxaan isiri maaragtay marka macnaha waxaan uga jeedaa anigu saasaan warka uga jeeday haddii maaragtay yani xumaan loo fahmay qofkii xumaan waa ka raali gelinaya qofkii sidaan ugu talagalay u fahmayna waa ku ammaanaya waana rabaa kiiskaas maaragtay in la xaliyana waa rabaa oo sideediyaan u rabaa siisaskaas in la xaliyo waa rabaa laakiin waxa weeyaan dadka shucuurka oo maaragtay waxa ka soo baxa in oo la wanaajiyo ama mala wanaajiyo waa iska fiican tahay marka haddii xumaan loo fahmayna ha laga raalli ahaado haddii wanaag loo fahmay sidaan ugu talagalayna waxa laga qabto waxa laga qabto saasaana jeclaha aniga waxaan ugu talagalayna saas waaye aada iyo aad marka ilaahay idinkiis waxaan ka rajaynayaa runtii maaragtay maadaama aan isleeyahay ilaahay dartiisna waad uga jeeday adinkana runtii wanaag aan idin hayaaho oo waxa weeyaan waa idin jeclahay ilaahay baan u sheegaya ilaahay adinkina waa idin sheegaya waa jeclay cidaan jeclahay waay sababta waxa weeyaan cid iila fadliya maba jirta aslan hadda ka horna waa ragaaba igu qabsaday hadda ka hor xataa waagii fitnadii ragaa igu qabsaday maalin intaan idhi maaragtay baalkii maxay ahayd saas intaan ka cabiray tacbiirkaas maaragtay nimankaas waxa weeyaan aniga fadli igu leeyihiin caynkaas ragaa igu qabsaday marka oo yacni shir ay ahayd maaragtay arrin aan waagii aan galnay ahayd markaasa war saas aha iga soo baxsaday markaasi xoogaa raggii qaar ay marka waxaan ka gabanayana maaha waa jeclahay wanaagaadna la jeclahay waana aaminsanahay dadka haddii adigu aada wanaagsanaataan maadaama waduucitiinin dadkuna wanaagaasu gaaraya waa garanaya ilaa fadiilooyinkaas aan sheego dadka badoodan aysan dhila lahayn ajir marka waxa weeyaan waxyaalahaas oo dhan marka aniga saasaan ugu talagalay saasaan u jeclahay laakiin shucuurkaas maaragtay ragga qaraabadaana ay muujiyeen laga yaabo adinkana maaragtay dad saasa inaysi warka ama saas loo fahmayna waa tixgelinaya oo ilaahay waa tixgelinaya laakiin kiiska asal ahaantiisu waa saas waaye waa jirta xataa maaragtay bahalkii maxal qolo maaragtay qof dad wadaad oo maaragtay ragga aan isaguna jeclahay oo ciddaa intuu maaragtay wareen maaragtay ciddii bahalkii shirkii waad ceebaysaa la yidhi ka waran markaas ma ceebayna saas shirka waa barakeeyey laakiin waxay ahayd qaladaad aan eri iska saxa bes khalaas isagiina waa iska qala marka waa saas waaye marka adigu calaa kulli xaal marka waxaan u jeedaa warkan aniga waxa weeyaan qasadkaan ka lahaa saasuu ahaa marka waxayna ku xiran tahay fahamka dadkay ku xiran weliba waxaa igu sii jirtay runtii baa idiin sheegaya yacni qofka bani aadamka ahi uma sahlana kiiskaas uma sahlana oo aniga xataa waxyaalaha oo igu qaaday waxaa ka mid ahayd runtii baa idiin sheegaya dadka waxaa igu qaaday dad qof arrintaa dhihi karaa inuusan maanta inuu yaryahay waxaa kaloo igu qaaday kiiskaanu haddii qolada maanta joogta ay fahmi weydo ama ay si qaldan oo siyaasiya maaragtay si qalad siyaasiya ay ka fahmaan
kuwa dambe inay maaragtay yacni ay ku nacfin doonaan kuwa dambe inay ku nacfin doonaan ilaa waxa weeye waa run dadka markaas joogaahi waxa weeye sidii ambiyada ku dhici jirtay dadka markaas joogaahi waxa weeyaan indha taagtaaganay kugu soo fiirinaya oo wadcigooda markaas maaragtay ayay wax ku xisaabayeen laakiin marka waxa weeyaan laakiin dadka khayrdoonka ahi ayagoo wadciga markaas jooga waxba ku aad maaragtay yani haddii laga aqbalana alxamdulilah haddii laga aqbali waayana dadka dambe wax uga tegaaya dadka dambe wax uga tegaaya marka waxaan is yidhi haddii xataa kuwan maaragtay ay qalad faham ay kaa fahmaan kuwa dambe oo maaragtay ayaa ku nacfin doona oo wax ka qaban doona oo kiiskaas maaragtay yani maaragtay ninkaasu sheegay waa in wax laga saxo inay dhahaan aad dhici kartaan kuwa maanta joogaha maaragtay aan kula hadla haddii iyagu maaragtay ay fahmi waayaan ama maaragtay ay maaragtay qaadan kari waayaan ama maaragtay ay la xumaato kuwa dambe ay anfici doontahay warkaas waxaan idhi yaysan adiga xaggaas yaysa kugu baaqan maadaama aan garanayay waa saas waay maalina waxaa dhacday qiso yaab laa idin sheegaya waxaa dhacday celebration october aan ku jirin marka ramadaanna waa ahay markii celebrationkii intii waa barooba ahaanaan ku jirnay marka ayaa marka waxaa la isugu kaaya yeeray saraakiishii maaragtay meeshan oo la oran jiray shirkal ofshaal markii la isugu kaaya yeeray cali samantala maaragtay kor naga magiciisiinayay marka isagaa yimid isagaa marka khudbaynaya oo wixii tasxiixii iyo wixii wey markaasaa waxaan arkay fiiriya bal waxaan idiin sheegaya yani qaabka oo aan dhaqankayga aan tusaya waxaan arkay ramadaan waay raggii oo dhanna sigaara la wada cabaya waa maalin waay raggii dhanna sigaara cabaya suma jeed bas marka isagoo intaas soo kacay oo isagii u imid oo dhegta ugu saaraan taliya markii ood warka dhamaysatid inaan maaragtay hadlaan raba hay markii uu warkii dhamaysto yiri haye ninkaana yiri waa inaan hadlaan rabaa xoogaa wuxuu ku daray wuxuu sheegi doona ma ogiye waxaa weeya kiis horaa noo horreeyey bas kiiskiyaan marka aan bilaabo marka show markaan oo dhowr kalimo aan idhi adigu 6 jumlo markaa oo kale markaan idhi uu fahmay inaan ka hadlayo diin inaan ka hadlayo asuu intee soo markuu yira waa waqti kale ku siinayna hadda waa qorax kuleyle wax warkay maartay soo joojido muxuu marka sameeyay waa dacweey yani wuxuu ku dacweeyay ninkii anagana xukumo jaranka iyagii ahaa oo Ismaaciil Axmed Ismaaciil uu dacweey hor taariikhiyo markaasaan waa yeeray Ismaaciilkii wuxuu yiri ninkan madaxda maxaa ka rabta markaasaan waxaan yiri fiidi bal sidaa u fikrayaan ku tusaya waxay yiri nimanka madaxda soo ma khaldamaan haabudha hada soo lama saxi karo haabuu yiri laakiin waad yar tahay buu dhahay waa runtiisa sarkaal yar cusub weli samuujid waad yar tahay markaasaan tiriye yaraan kuma xiree qaladkii waa dhac anna waa garanay waana kari marka kiisku marka kadib maxaa adigu marka aad u kartay maxaa u fiicnaatay miyaa marka lagu haystaa hada marka maxaa u fiicnaatay ma lagu haystaa maxaa u garatay maxaa u kartay maxaa u tiri ma lagu haystaa asagii markaas isku xishoodo uu yiri ma saas baa raali ah ma gacankaas ma ha laakiin maartay nimankaana iska jeclaan lahaa inaad ka leexleexatid waxaan dadku waa loo wada leeyihiin dadku maartay yani waa la issaxaa waa fiiri waa markaas waay wax weeyaan waa markaan ba cusbeen waa 75 meelahaas taqriiban inay heedan malayna marka wax weyn waxyaalaha waxaani waa wax oo yani anigana Ilaahay subhanahu wa ta'ala dabci uu siiyay kartina uu siiyay oo maartay waxaan waa saas waa qalad waxaan hal joojiya aan dhiga qawa kadibna aan xil iska saarayo maadaama maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiina wax iga baray dabcigi wax iga baray dawladnimadii wax iga baray dadkii yani shacabkii shacbigii wax iga baray odayaashii wax iga baray dhaqankii wax iga baray wax weyn waxaan dadka maartay in cala aqal xoogaa
qoraalka waa la qori karaa laakiin dadku sida badanaa soomaalida waxba ma akriso nimaan maaragtay qoraalkiisa aan qaladaad badan ku jirin oo uu galayna ma jiro oo maaragtay ninka la yiraahdo cabdullaahi yuusuf aan aqriyay ninka la yiraahdo farmaajahan kitaabkiisa waxa uu anigu weli ma aan helin laakiin waxa laga sheegaya waa wax badan waay soo muujeed cabdullaahina waa ma la yaab waxa weeye sida ninkaas qabyaalada bahashu siday ku ahayd maba moodaynin ba in maaragtay yani nin darajadaas gaaray inuu saa ku yahay wax walba qabiil ku fasiraya wax walba qabiil ku fasir waa khatar waay marka yani marka dadku marka buugaadna kutubtaanaan akhrin marka waxaan is yidhi codkaana roon ay dhegaysanayaan codkaan ku gaarsiiyaan is marka haddii marka qalad loo fahmana aniga waxa weeyaan waxa weeye abkii baa yidhi tubtina waa karaa haddii maaragtay iga xumaatana aniga waa karaa inaan idhaahdo raalli ha laga noqdo alxamdulilah oo waxa weeye isma kibriyo haddii qalad layga tirsado iyadoo xataa waaragtay maalin oo odayaalka waayaha xoogaa maaragtay anigu wax ka tirsanaya aan maalin maaragtay aan la kulmo markaasaan idhi ninku waxaa fiican tolkiisa hadduu xataa ay maaragtay iyaga ka khaldan yihiin inuu raalli geliyaa fiicana dhah aaday warkaas ay u jeclaystay marka waa run xataa haddii oo maaragtay bahalkii maxay ahayd waa inaan waxba iga dhibi mayso aniga waxba iga dhibi mayso waxba iga dhibi mayso inaan idhaahdo hal raalli ahaado waxaan idin leeyahay markiina waa ku daro warkan waa ku daro horna waa uga daray gadaalna waa uga daray marka waxa weeyaan calaa kulli xaal waxa weeyaan warkaas laakiin waa war aan yani ugu talagelay yani xanuunka inuu leeyahay waa garanaya xanuunka waa leeyahay sax waaye weliba meesha maaragtay aan abtiyaalka iyo odoga iyo abaalkii gabdhaha iyo markii aan uga hadlay iyo guurka iyo war xanuun way leedahay sax waaye laakiin waa ku talagalay sabab waxda weeyaan maaragtay waa cilay jirtay waa in la saxa u baahan cilay jirtay waa in la saxa u baahan soomaalida dhan in laga saxa u baahan weliba waxaan iska iloobay xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam ibnu ukhti lqowmi minhum uu dhahay xadiidkaasad iska ilaab haddeeraan ku daraya in ukhti lqowmi minhum waay waxa weeyaan xadiidkaas hala hirgeli oo kulligiina hirgeli kulligiina hala hirgeli waxa weeyaan maaragtay yani inay caruurtaadii colaadii gasho oo khatar waay dadka markaasaa la fahmaa marka dadkii la coloobo waay marka ciladii soo baxaysa marka cilada soo baxaysa waa markaas waa waa markii la coloobo waay markii la nabada iska yahay maxaa maaragtay waa la isdhex jooga laakiin markii la coloobay soo baxaysa cilada marka in ukhti lqowmi minhum waa mid maaragtay ninka la yidhaha cumar xaaji aan maaragtay kula dooday ilaa hadda marixaanku igu qadariyaan waay oo weliba kaga adkaaday oo ilaa yowmina haada igu qadariyaan oo halkan xataa igu yimaadeen subujeed marka nimay maaragtay dadka sidaa loo dhaafo dadka hana la isi saxo ayana hadda waxa weeyaan xumaantiin maaragtay igumana jirto weligeedna ima gelin kuwaan maaragtay qaraabada aan naha waxaan ku yidhi adinkaa maaragtay yani adinkaa kiis idinku jiraan kiiskiini aad igula galgalanaysaan baan ku dhahay yani waxaan sheegaya kiiskii habargidirta yaamgaalan sheegaya ama mudlood aan sheegaya marka igula galgalanaan anigu kumana jirin mana maaragtay mana idinku raacsanayn kiiskaasa idinku jiraan markaas waxaad is leedihiin balaayo wadaadkaan idinku soo furaya mar kale maya aniga ciddaana ay xigtaan waanay fahmayaan iga leex soo ma jeedi marka waa saas niman yahow maaragtay yani kiiska haddii maaragtay qalad fahm laga fahmayna laga raalli ahaado haddii sidaan ugu talagalay uu yahana hala saxo ilaahayna hana wada saxo kulligana insha allahu tacaala kulliganana allahna wada saxo ilaahay diintayda nala soo celi diintana ha lagu saxo aan ku wada diintana ilaahayna siiyana aan usoo noqono aan iyadana isku xukunno aan iyada ku dhaqanno mujtamac hadday tahay iyo maaragtay reer guriga bahalki maxay ahayd usra hadday tahay guri hadday tahay iyo ninii caruurtiisa zawjadiis hadday tahay iyo hadday dawlad tahay iyo hadday maaragtay qabiil tahay iyo kulli waxaasoo dhan iyadii ilaahay aan u noqono haddii kale waa la kala antalwaahaya oo khatar weyn waayo mar kalaan ka hadli doona intaasaan maanta ku talagalay ilaahay maaragtay hana wanaajiyo kulligana ilaahna wanaajiyo kulligana mar kale maaragtay waxa weeyaan ha laga raalli ahaado sababta waxa weeyaan xumaan laguma talagelin maaragtay laakiin wanaaggaas waa wanaag ahaan ugu talagalay
ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sidii wanaaggii aan ugu talagalay inuu ka dhashaan rajaynaya waana aqaanaa waxa weeyaan waxaan kelimaadii aan dar ilaahay u iraahdo sida badanaaba waa ku dhibtoodahan idhaahdaa laakiin ilaahay waa ii wanaajiyey marka taasna waa intaasaan idinkaga tegaa asalaamu calaykum waraxmatullah